haddaan nahay Soomaali halka annaga nagu jira annaga la heshiinayna cid isku keen khasbaysa ma laha qaarkiisa maanta waxay leeyihiin idaacadaha aad ka maqashaan dawlad xoog badan oo gacan adag loo baahan yahay dadka gacan adag ku qabato dawlad xoog badan oo dadka gacan adag ku qabato dadka cimrigooda heloon anigu kamid ah waa soo joognay waxa maanta joognaan ka dhaxalnay dawlad dadka gacan adag ku qabato qaanuun iyo shuruuc aan u baahannahay gacan adag ku qabatay shakhsiyaad gacan adag ku qabto dadku uma baahan marka dadku in ay qawaaniinta iyo nidaamkana waa inay ka dhacarkaan in ay maslaxadooda ka turjumay waxay aaminsan yihiin qaanuunku qaanuun aaminsan inuu yahay waxa ay danaynayaan qaanuunku mid difaacayo waxaas inuu yahay sharafta iyo karaamadooda ayagu dadku siday u arkaan mid difaacayo ilaalinaya qaanuunku inuu yahay laakiin qaanuunka haddii loo arko midaan diintii waxba ku falayno ilaalinayno ku xadgudbayo oo sharaftii dadku ay lahaayeen ku xadgudbayo dhaqankii iyo qoyskii iyo nolonaashihii ku xadgudbayo oo beelihii meelo degan ay ku xadgudbayo waxba beel meel degan oo Soomaaliya oo miyi degan oo xoolo leh oo biyo la'aan ay ka jirto intii garanaysa la yiraahdo waa waxay reerkaas waxay degan meel 3 subaxley ah 3 maalmood biyaha si meel biyo loo taga loo sii soconaya 3 maalmood kalena waa laga soo soconaya usbuuc ka bacdi reerku biyo helayaan reerihii meelaha deganaa markay baraag yaro biyo roobku markuu ay biyo ugu aruuraan oo muddo kale intii roobka kale ka da'ay ka cabaan markii dawladdu intay tagtay ay ka dudumiso canshuurtii laga aruuriyay muxuu ahaa baabi iyo taangiga lagu soo gaday markii dawladdu intay yimaadeen ay dardarto jijibiso ay ku dardarto dadka ku disho ay arkayaan war diyaaradan sawtii lagu soo iibiyay aniga ma aha war baabahan sawkii lacagtii laga qaaday lagu soo dadkii dilayo dadkii shacabkii aan waxba haysan waxba galabsan oo ay gaasanaan hebel waxa uu rabaad rabi weyday ama muxuu ahay nidaamka jiraahay wuxuu rabaad rabi weyday war nidaamka duu khaldan yahay waa khaldan yahay waanan dhigi karin waxaas marka sharciyad darro iyo nidaamka la sheegay marka maanta dhalinyaro waxaas waa wixii shalay waay aragnimo iyo tacliim wax ku qaadashay inuu leeyahay laakiin waxa naga maqan mid hadda uu sheegay political imagination khiyaali siyaasadeed khiyaali mustaqbali inaan abuurno oo aan ka fikirno maaha kaliya inaan hibanno shalay wixii aan haysanay waxbaan ka baranaynaa wixii ku xumaayeen aan baranaynaa wixii fiicnaayay naga baabi'iyaan inaan soo celinaan ka shaqaynaynaa laakiin beriyaan u baahnaa inaan ka fikirno beri 1960kii ma ahan beri 70kii ma aha 90kii ma aha beri waa beri cusub 2020 2030 2040 2050 iyo ka sii gadaal ayaan u baahannahay inaan dhahno waxaan rabnaa saas inaan noqonnaan rabnaa ilaahay idankiis Soomaaliya noocaas aan rabnaa Soomaaliya ammaankeedu sidaas yahaan rabnaa Soomaaliya dawladdeedu ay dadka waxaas u qabataan rabnaa Soomaaliya adduunyada sidaa ula macaamishaan rabnaa inaan muxuu ahay aan waxayno adduunyada inaan erino ku buuqno caayno cadow u aragno malaayiin Soomaali ana muxuu ahay inta la soo dhaweeyo meel la dejiyo la nooleeyo oo siyaasadana kaalay ka soo qayb galay la sida hadda la sheegay iskuma kaan qabato kan ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo khayr qaba ilaahay nooga dhigo sanad aan ka shaqeeyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed ilaahay nooga dhigo sanad dib u dhis ah oo aan dalkeena dhisano ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreyn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qolooyinkan shayaadiinta ah oo al-shabaabka ah markaan leeyahay dib u heshiisiin waa wax ugu muhiimsan oo ummaddeena iyo shacabkeena ay naga sugayaan waxa ugu horeeya dib u heshiisiin dhexdeena horta inay ka bilaabato waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxa loo baahan yahay dib u heshiisiintooda inaan bilaawno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan hayaa warqad aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqaynta golaha shacabka sidii maxaan ku yiraahdaa dowlad goboleedyadii ay shaqada looga joojiyeen annaga marka hadda dhexdeena weeye weli waxaan u gelaynaa gudaheena wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeena Soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isugu soo dhawaan lahaayeen sidii gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno hadduu Ilaahay yiraahdo meesha ka soo bilaabatay marka 4 bilood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigaan furmayay oo aan ka hameynay inaan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka
inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qudbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyey yaa aqalka sare waxay yidhaahdeen annaga golaha shacabka meel la fadhiisan mayno waxaan u yeeray guddoomiyaha maxamed mursal iyo maxaanku yidhaahdaa cabdi xaashi waa wada fariisiiyey xaaladooda waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fadhiistaan aysan wada fadhiisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas-uuliyiin nahay inaan fiirino dareenka shacabkeenna haddaan wada jirno shacabkeenna waa wada jirayaan haddii aan kala maqan nahayna shacabkeenna waa kala maqnaanayaan soomaali haddaan nahay annagaa heshiino dhexdeenna intay rabta lagu qaadato ma ogolin inay cidda soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeele waxaan ogahay intay rabta ha qaadato haddaan nahay soomaali xalka annaga nagu jiraa annagaana heshiinayna cid isku keen khasbaysa ma laha cid damaanad noo kala saxiixaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaana loogu kala saxiixay weliba dhibkii weli qaar ka mida waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeena inaan damaanad isku noqonno oo dhexdeena aan ka heshiinno cid walbana aan u sheegno annagaa iskale hawlaheenna annagaa heshiinayna annagaa walaalo ah kaftanka waa tana marka kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiye waa kaftameena waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see waxay yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see weegyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogo waa igu soo celiyo wuxuu yidhi nambarkaas weeye oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan yidhi maqabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inooga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka 2018 waxaan ku yidhi marka haddee see isku waafaqaysaa wuxuu yidhi waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yidhi khalad kalin ku jiraa waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yidhi saxiixa waxaa ka maqan dateskii oo waxaan ku yidhi see dateski qofku uu ku iloobi hadduu qofka saxiixay see ku iloobi waktiga uu saxiixay waxaan ku yidhi haye maxaa kaloo ku jira wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibnaha jira oo aan ka warqabin waxaan waxaan ku yidhi marka waayahay guddoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motif muxuu yahay maxaa laga danleeyaha waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yidhi hore wuxuu yidhaahdeen qabye ninkeedaa dhammaystira waxaan ku yidhi waayahay waa dhabi qabye ninkeedaa dhammaystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yidhi maya waa 2019 waaya maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyeen waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ee iyagu maamulaan
inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dowladda inay dhammaystir ku sameeyaan wax alla wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku rahdaa kanaalkaan sheegay ayaan dhawey oo werihi kasoo fatahayay in la furo oo beerta loo daayo waxay rabaan yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan yiri in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.